waxaa xiriyaha qaxootiga Dadaab gaar ahaan xerada Xagardheer lagu qabtay bandhigga adeega Bamba Chakula taa oo ay soo qaban qaabisay hay'adda cunnada adduunka ee WFP iyo hay'adda u qaabilsan wacyigelinta iyo hanuuninta dadweynaha ee Film Aid International. bandhigga xafladan ayaa waxaa loo gol leeyahay mashruuca loo yaqaan Bamba Chakula oo ah mashruuc 3 sano jirsaday taa oo laga hirgeliyay xiriyaha Kenya sanadkii 2016 waana adeeg maaliyadeed oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadweynaha ku dhaqan xiriyaha Dadaab iyo Kakuma. Bamba Chakula waa adeeg maaliyadeed asal ahaan loo gol leeyahay inay dadka qaxootiga ah ay ka dhigtaan masruuf ay ku maareeyaan nolosha qutulyoonka ah ee loo yaqaano iidaanka waana adeeg 10% laga jara raashinka ay qaxootiga qaataan isla markaana loo waciyay isticmaalka adeega qudaarta. munaasabada bandhiggan ayaa waxaa ka soo qayb galay hay'adaha ka howlgala xiriyaha Dadaab, dhalinyaro, haween, culamaa u diin, arday, fanaaniinta xerada Xagardheer iyo fanaanka Iidlayara iyo marti sharaf kale. intii ay socotay munaasabada bandhigga waxqabadka adeega Bamba Chakula ayaa waxaa goobta lagu soo bandhigay macluumaadka adeegan iyo faa'iidada uu bulshada u leeyahay. waxaana madasha xafladan ka hadlay ka soo qaybgalayaasha iyo madaxda hay'adaha. Okay, waxaan kaloo aad ugu mahad celinayaa hay'adda Bamba Chakula oo igu casuutiyo Film Aid oo meesha igu casuumeen anigana aan ka aqbalay si aan dadkay waqti ula qaato inkastoo aan jeclaa waliba inaan qoraxda imaado. And I hope you enjoy when he's entertaining all of you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن عبد الله وأنا شغال هيدا فيلم انترناشونال وحنا MLU في ساقة. مركون فرح سنة ما تسيد أنا وفرح سنة ما دام أود بلدقني Bamba Chakula مركل ليجاري وديم كانوا success Bamba Chakula مركل ليجاري يدتك سوق فهمين يصير يدتك كودي لغة بربيعي تاسو فيلم يدو إذا كعامل يصير WFP بين أخبارها. Bamba Chakula brought us with a lot of opportunities such as job creation whereby the double shopkeeper every. Thank you so much. You know, it's a short time, but again, I'm very happy. My name is Samad Murimi, and I'm very happy that the community showed up. The event was about celebrating the success of Bamba Chakula, and this success is not just our success. It's a success of each and every beneficiary in Dadaab and in Kakuma as well. Bamba Chakula is in Dadaab and is also in Kakuma. child protection ama loo yaqaan badbaadinta caruurta Xagardheer ana waqti badan iga sii qaadanin waa idin salaamaya ku soo dhawaada xafladda maanta ee diyaarisay Film Aid iyo WFP iyo World Vision inta kadib waxaan maanta laga mashruuca maanta waxa weeye Bamba Chakula soo garansanahay Bamba Chakula waxay bilaabatay 2016 nolosha bulshada wax bay iska bedeshay geesta kale markii ay soo gabagabowday bandhigga mashruuca maaliyadeed ee ay bixiso hay'adda cunnada adduunka ee WFP ayaa waxaa dhankooda warbaahinta la hadlay dadkii ka soo qayb galay madasha bandhigga iyo sida ay ugu faa'iido qabaan adeegan Bamba Chakula. waxaan halkan u joognaa sanad guuradii Bamba Chakula maalintii la bilaabay waxaan ka mid nahay guddiga u xilsaaran kaamka Xagardheer Bamba Chakulada in aan loo isticmaalin si qaldan oo lagu isticmaalo waxyaabaha dadka ilmaha caruurta iyo maamooyinka wax ku tareeyo nafaqada leh iibsan karto ilmaha ay ku cuni karaan maadaama raashin oo moorta inta laga bixinayo waxaan ilmaha cuni karin qudaar baa lagu soo qaadaa kunta lagu soo qaadaa kabashka sukumada hilibka caanaha sokorta waxyaabahaas aan ku isticmaalnaa saas ay ama taqaanaa marka maanta nin horta ma ko raashin qallamaan la siinay laakiin qudaarta way naga maqnayd hadda lacag waan la siiyaa qudaarna ku bedelana qudaarna ku soo qaadanaa marka in ka soo ma kareeto oo intii la siiyo galey wax daran baan la siinoo soo shiidanayna wax qudaar lagu darsanayo ma lahayn laakiin hadda waxa la helay qudaar fuule oo lagu darsaa la helay. bandhigga xafladda adeega Bamba Chakula ayaa intii ay socotay waxa ay ahayd mid dadkii ka soo qayb galay xafladan ay u riyaaqeen
waxa ayna ku soo dhamaatay jawi aad u degan. Mawliid Daahir Cagalle Mawlid Qorshe, bidhaan aragga caalamiga ah ee Ariel TV, xeryaha qaxootiga Dadaab, Kenya.